خيارته هو النجد يسرسي ومركلي برنامج كيني ورك qodobbadan idinku hayana waxa kamid ah ciidamada booliiska oo xabsiga dhigay wadaad lagu magacaabo Maxamed Wali oo ka soo horjeestay ictiraafka Soomaaliland maalqabeenka caanka ah ee Elon Musk ee dalka Mareykanka u dhashay oo ku baaqay in xabsiga loo taxaabo safiirka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Abuukar Baale dawladda Saudi Arabia oo hanjabaad kul u dirtay dalka Imaaraadka Carabta koonfurta Yemen oo ku dhawaaqday inay noqotay dawlad gaar ah oo ay ka go'day dalka Yemen intiisa kale dawladda Israa'iil oo badbaadisay 100 caruur oo reer Soomaaliland iyo qaabka ay badbaadiyeen daawadayaal qodobadaas ayaa ugu door waaweyn wararkan caawadin hayno haatan ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan halkan anaga daawanaysana waa Kennedy Media anigoo Kennedy ee barnaamijkeedina socodsiinay fadlan muuqaalka share gareey YouTube kana subscribe saara hadii aad hore noola joogteen aad baad ugu mahadsantiin haatan ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan maalqabeenka dunida ugu tijaarsan ee Elon Musk oo saaxiib dhowna la madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in la xidho danjiraha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay Abuukar Baale Elon Musk oo loo yahay inuu yahay ninka ugu tijaarsan dunida saaxiib dhowna la sar hormada ku sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo qadiyada Soomaaliland iyo madaxbannaanida Soomaaliland aan xaqiisa laga marin oo aad u taageera ayaa maanta bartiisa Twitter ku soo baahiyay qoraal uu ku dalbanayo codsi ah in xabsiga loo taxaabo danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya kaasoo magaciisa la yiraahdo Abuukar Baale oo ah ninkii qaramada midoobay kaga doodayay inaanay jirin wax Soomaaliland la yiraahdo Soomaaliyana ay tahay dal qura sidoo kalena aanay jirin wax suuqa oo dawladii General Maxamed Siyaad Barre ay u geysatay dadka reer Soomaaliland hase ahaatee wixii meesha ka dhacay ay ahaayeen dagaalo sokeeye oo aanay dawladii shaqo ku lahayn sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Saudi Arabia ayaa baraha bulshada ka soo muuqday isagoo si kulul ugu hanjabaya dalka Imaaraadka Carabta oo ka dhaxeeyo xafiiltan iyo dagaal waxaana kamid ahaa ereyada uu ku hanjabaya hadaan nahay Sacuudiga waa laga yaabaa inaan wax iska cafino laakiin ma hilmaamno mana cadhoono haddii aanu cadhoona waanu xanuujinaa cidii aanu cadhoono نحن كسعوديون قد نسامح لكن لا ننسى لا نغضب وإن غضبنا أوجعنا ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa goor dhowey xabsiga u taxaabay nin ka soo horjeestay ictiraafka Soomaaliland wadaadkan lagu magacaabo Sheikh Maxamed Wali oo kamid ah culimada reer Soomaaliland ayaa khudbadii Jimcaha si toos ah uga soo horjeestay ictiraafka Soomaaliland dhaliilayna jamhuuriyadda Soomaaliland cilaaqaadka ay la samaysay dawladda Israa'iil sheegayna tallaabadaasi inaanay ahayn mid ku habboon diinta Islaamka dhakhtarad kamid ah ardaydii wax ka baratay isbitaalka Adna Aadan ayaa sheegtay in wax ka badan 100 caruur oo reer Soomaaliland ay badbaadisay dawladda Israa'iil iyadoo sheegtay in dalka Israa'iil dhowr jeer ay tagtay oo ay u qaatay caruur yar oo waxba laga qaban kari waayay dalka gudihiisa kuwaas oo ay soo food saareen xanuuno dhanka wadnaha waxaanay sheegtay in dhammaan qaliinada wadnaha ee lagu sameeyay caruurta ay ku guuleysatay dawladda Israa'iil kadibna ay sidaa ku badbaadeen dhammaan taasoo cadeynaysa inaanu xiriir hore oo diblomaasiyadeed aynu lahayn dalka Israa'iil maanishma oo ah iska waran sababa oo kala waxay noqonaysaa waan fiicanahay iyo toda ama todaraba oo ah wad mahadsantahay cuntadii oo loo sii kariyay baan tagnay talaagadii meesha wax ku cuninay everywhere kasta iyadoo Soomaaliland lagu qoray Soomaaliland baa lagu qoray ayaan tagnay hooyo waxa kamid ah hooyooyinka tiraahday kalidayda xataa inaan soo iibiyan rabay saan inaan kaga badbaadin lahaa inaan ka soo kaliya inaan kadana waa goonta bijir weeyaan inaan ka qoray inaan kaas kaliya tahaysata iyo laba hablood markaas si ay inankeeda u badbaadiso maadaama ay ogtay inaan meel kale wax uga iman karahaynin wadankeedina aysan ka heli karahaynin dhaqaalahaas walaa waxaan ku tagnay baasaboorka Soomaaliland anaka iyo hooyooyinkaba marka laga reebo hal gabadh hal maamo iyo inteeda yar oo Puntland ka yimaado baasaboorka Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا هبوني لهانتين با واحد كسر دواتان ورئيس جارة وأنا لا يلا نعيمة عبد الكريم نعيمة أو أحكال كالسة عافيمات أو كشق يساع إسبيتال كأدنى عدن مجال هرجيسة إلى صدق شر أي واحد تكتب وطن كإسرائيل هالكاس أو أي كقيب قاعدين يسي دلنيرو غير سومالي لنا أما دلنيرو سوماليات با oo halkan laga diray magaalooyin kale oo Soomaaliyeed boo intii ka yimaadeen isbitaalkan Adna Aadan lagu soo hagaajiyay isla markaasna loo qaaday wadanka Israa'iil kuwaas oo halka loogu soo sameeyay qaliin dhinaca wadnaha ah hadaba Naciimo waxaan ka wareysan doonaa bal cid qaliinkaasi sameeysa lacagta ciida bixisa sidoo kalena iyo waxyaabaha ay ku soo aragtay wadanka Israa'iil iyo waxyaabaha ka yaabiyay Naciimo marka hore soo dhaw Naciimo ay maxay yihiin caruurtan loo qaado wadanka Israa'iil ee lagu soo daweeyaa xasan oo maasantahay aniga markii ugu wareysantiga waxay ahayd 2024 horaantiisii bay ahayd markii koowaad tagay ciyaalkan yar yar waxa goor baan tagtay 3 jeer baan tagay Israa'iil waxa 3 jeer oo kala duwan baan tagay markii ugu yareeyna aan joogay 3 bilood inta kalena ka badnayd ha ciyaalkan walaa waa caruur yar yar oo wadnuhu yani dadkan waxa wadnaha dalalo qofka laakiin xaaladda wadnuhu ma hadalo kaliya qaar xididada xiran qaar labada xidid bay isweydaarsan
qaar wadnihii baa 3 xaaladood oo kala duwan ama 4 xaaladood ay ku kulansan yihiin qaar labadii xidid midna lagu talagalay jirka inuu dhiig geeyo ka keeno midna sanbabka ayaa isku furan yani waa kala duwan yihiin marxalado fara badan oo kala duwan baa wadnaha ka jira marka ciyaalka yar adigu heart defects baa isku dhacdaa yani dhibaato wadnaha ka qaba daruur kaliya maaha ciyaalka yar yar bay ka mid yihiin carruurta yar yar ee aan u dirno Israa'iil anigoo ku hadlaya magaceeda aadan dhakhtarkeeda marka sidee idinku suurta gashay inaad carruurtaasi dirtaan horta waxaa jirtay xilligii ugu horreysay inoo bilaabantay ciyaalka yar la diro waxay ahayd waqtigii ka horreysay koronaha waqtigii saxda xilliga ama xilliga dhakhtarka maan joogi jirin markii in yar la qaaday nabar aad u yar korona baa dhacay qofkii markaa aan la xiriirinay baa meesha ka baxay haddana dib baa waxay nagu soo cusboonaatay 2020 wixii ka dambeeyay ilaa 2020 meelahaas 7 jeer bay carruurtu kala tageen kala duwan xasan wala carruurta yar waxa weeyaan ciyaar yar oo dhibaatooyin kala duwan wadnaha ka qaba marka dadkeena laga hadlayo ama hooyada marka weydiisid waxay ku leedahay ilmahayga waxa la igu yiraahday wadnaha daloola laakiin carruurta wada darool kaliya tamaha yani xaalado kala duwan baa wadnahii ka qabaan kuwa muruqii wadnaha dhibaato ka qaba kuwa xididadii waaweynaa ka qaba kuwa xididadii yaraa ka qaba kuwa wadnu isku daloolo kuwa uu xiran yahay baa meeshii ama kii dhiigga tuurayay ama kii sanbabka dhiigga soo qaadayay labadii dhiig jirkeena dhiiggiisa waxa loo qaybiyaa midna waa dhiig wasakh oo jirka laga soo ururiyo oxygen midna sanbabka laakiin waa dhiig nadiif ah oo oxygen lagu soo daray labadii dhiig baa isku darsamaya marka xaalado kala duwan bay carruurta yar adigu qabaan oo isku yiraahdo marka laga hadlayo afka kale heart defects isku yiraahdo adigu imse goorbaad Israa'iil tagtay oo carruurta yar qaada ana waxaan qaaday 3 jeer bantiga 3 jeer baa Israa'iil tagtay magaalada tagtay waxaan tegay Tel Aviv magaalada yar ugu jirto reer Holland oo ku yaala meesha ciyaalka yar marka loo diro lagu xanaaneeyo dhakhtarkuna ku yaala guriga degan inuu ku yaalo daawadayaal wararkeenu caawa inta ay ku kooban yihiin halkan nagala socotana waa Kennedy Media oo Kennedy barnaamijkeeda la socodsiinay fadlan waxaan idinka codsanayaa muuqaalka share gareeya YouTube-kana subscribe ta saara haddii aad hore noola joogtaan aad baa mahadsantihiin inuu barnaamijka la mid ah sugu iman doono nabadi